hadda aan idiin soo gudbinayo qisadeedu waxay tahay gabdhaha hadda nool ee raba inay guursadaan sidii markay reer dhistaan ay ku soo jiida lahaayeen xaajigooda ama noloshiisa wax badan ay ugu bedeli lahaayeen. qisada ciwaankeedu wuxuu yahay gabadha xigmadda badneed ayaan idiin soo gudbi doonaa. qisadan waa qiso cajiib ah, run ahaantii markaa rabtid qof noloshiisa inaad beddeshidne waa inaad u soo martaa sidii aad ku beddeli lahayd. waxaan idiin soo gudbinayaa qisadaas oo taabanaysa meelo fara badan. dhinacna waa cajiib, dhinacna wuxuu noqon doonaa qosol. waxaa ka daawanaysiin barta YouTube-ka ku leenahay ee Socdaal 24, aaladdeena Facebook, YouTube iyo aaladdeena TikTok-ga. qisada waxay ku bilaabanaysaa sida tani. sheekh Soomaaliyeed ayaa maalin maalmaha ka mid ah wuxuu u imaaday nin iyo xaaskiisa. ninkii ayaana wuxuu dhahay, sheekhi waxaan rabaa xaaskayga inaad quraan iigu akhriso. sheekhi waxa uu dhahay, haye waan kuugu aqrinayaa. sheekhi waxa uu bilaabay qur'aankii. in muddo markii gabadhi uu ku aqrinayay ayaa gabadhii waxaa ka dhex hadlay jinni. jinnigii markii uu ku dhex hadlay ayuu sheekhi waxa uu dhahay, jinnigii ayaa hadlay. markaas ayuu dhahay, waan ka baxayaa gabadhan, laakiin shuruud ayaan wataa. sheekhi waxa uu dhahay, ma jirto oo shuruud la'aan ayaad ka baxaysaa. qur'aankii ayuuna iska sii waday sheekhi. muddo markuu qur'aankii ku waday ayuu mar kale jinnigii hadlay. wuxuu dhahay, waxaan rabaa mar kale shuruudahayga inaan kuu sheego. sheekhi ayaa dhahay, shuruudahaada maxay yihiin? jinnigii ayaa markaas wuxuu dhahay, waxaan diyaar u ahay gabadha inaan ka baxo, laakiin waxaan geli doonaa ninka, ayuu dhahay jinnigii. sheekhi ayaana sababta weydiiyey. markaas ayuuna jinnigii wuxuu dhahay, ninkan wuxuu yahay nin aanan salaada dukan. jinnigii markii uu sidaas dhahay, ninkii inuu soo booday ayuu dhahay, sheekhu waa beentiis oo aniga salaada waan dukadaa, mar walbana waan ku dadaalaa, ee jinniga gabadha ha ku jiro yuusan ka bixin. sheekhi ayaa markii dambe wuxuu dhahay, haddii sidaasi tahay, jinniyow gabadhan ka bax, bannaanka gurigooda fadhiiso. haddii ninka salaada uu duko waayene isaga markaas gal. sidaas ayuu jinnigii gabadhii ugu baxay. kadib markii muddo oo sheekhi ay kala maqnaayeen, gabadhina waa ay caafimaaday. laakiin qisadan waxay tahay qiso xigmadaysan oo u baahan midhaha xigmadaha inaan kala baxno. muddo kadib ayay gabadhii waxay wacday sheekhi. salaan kadib sheekhi waa ay iswareysteen. markaas ayuu dhahay, sheekhi ninkaadii ka waran, salaadii siduu ku yahay? markaas ayay gabadhii waxay dhahday, ninkaygu wuu fiican yahay oo masaajidka kama baxo, mar walbana salaaduu ku dadaalaa. sheekhi wuxuu dhahay, maasha Allah, adiga xanuunkii ka waran, ayuu dhahay. markaas ayay gabadhii waxay ku jawaabday, anigu waan fiicanahay, maasha Allah, xanuun ma haayo sheekhow. marka ay quraan saaraysana aniga waan jilaayay oo wax jinni ah oo i haayay ma jirto. waxaan rabo oo keliya ninkaygu inuu noqdo mid salaada ku dadaalo oo mar walba noqdo mid cibaadada Ilaahay xasuusto. sheekhi marna wuu qoslay, marna wuu murugooday. markaas kadib ayuu sheekhi wuxuu dhahay, waxaa tahay marwo fiican, waxaa tahay marwooyinka lagu duceysan jiray. adiga oo kale ayaana loo baahan yahay kumanaanka qofood ee muslimiinta ah inay ku wada jiraan. gabadhina aad ayay u faraxday. qisadan ficilka aan ka baranayno waxay tahay, haddii marwo fiican ay kugu soo aado, mar walba waxay noqonaysaa marwo ku xasuusiso khayrka iyo waajibaadka Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku saaray. mar walbo waxaan idin leeyahay, xusuusta adduun iyo aakhiro, salaada waa camalka ugu horeeyo ee lagu weydiin doono marka aad dhimato, waana nuurka adduunka iyo aakhiro aad ku wada joogi doontid. waxaa qisadan idiin soo gudbinaya anigoo ah Mahad Abuukar Maxamed Mahad Socdaal.
intaa ku kulmi doona qiso noocan oo kale ah sidaas nabadgelyo haddii aad haysid qisooyin noocan oo kale ah waxaan ugu soo diri kartiin WhatsApp-keena oo saaran aaladeena TikTok socdaal 24 ilaa iyo dhamaadka haddii aan la soo gaartay qaybta commentiga ayaa nagula wadaagi kartaa aragtidaada ugu muhiimsan qisadan waxa ka faa'iiday waa ku mahadsantahay inta qiso noocan oo kale ah ku kulmi doono nabadgelyo